السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله markale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo caafimaadka maanta waxaan jeclahay in aan idinla wadaago cashar aan isleeyahay xaqiiqdii qof walba oo daawanaya wuxuu u noqon doonaa cashar aad u faa'iido badan aad u anfac badan casharkaas mowduuciisa wuxuu ku bilaabanayaa su-aashuna waxay leedahay waa maxay waqtiyada igu fiican ee aan wax cuni karo iyo waqtiyada aanan wax cuni karin. Okay. What are the best times for me to eat and not to eat? Su-aashan su-aal dad badan ay weydiiyeen waaye. Halkan waxay leedahay waqtiyada qofka uusan cuni karin iyo waqtiyada qofka uu cuni karo. Marka waxaan jeclahay su-aashan inaad wax badan ka faa'iidaan maanta sababtoo ah dadka markaan kala hadlo arrimaha nutritionka iyo cuntada iyo caafimaadka iyo nafaqada waxaas markaan kala hadlo su-aasha ugu horeysa ee mar walba ay weydiiyaan waxaa waaye waqtigee aan wax cuni karnaa, waqtigee cuntada aan joojinaa, waqtigee ugu fiican inaan cuntada cunno, waqtigee aan fiicneen inaan cuntada cunno. waana su-aal dad badan ay ku dhiban yihiin xaqiiqda. Marka jawaabteeda aan isla fiirino hadduu alla idmo. waaye markii aad soo kacday subaxii aad soo kacday waqtiga ugu fiican ee aad cuni kartid waxaa waaye 45 daqiiqo ee ugu horeysa ee aad soo kacdid waxaa lagaa rabaa inaad quraacatid. jirkaaga caadi ahaan wuxuu jecel yahay marka uu soo kaco wuu program garaysan yahay waxbaa wuu ogsoon yahay inuu u baahan yahay inuu shaqeyn doono. lafahaaga iyo murqahaaga iyo maskaxdaada iyo jirkaaga dhammaan shaqay diyaar u yihiin, ama markaas shaqo caadi ha noqoto ama markaas waxa weeye iskuul aad aadaysid ama waxbarasho aad galaysid ha noqoto, laakiin jirkaaga iyo maskaxdaada iyo lafahaaga dhammaan waxay diyaar u yihiin in ay shaqeeyaan. saa daraadeed waa inaad shidaal siisid, fuel fiican ama shidaal fiican inaad siisid waayo. marka waxaa loo baahan yahay quraac caafimaad qabta oo healthy ah in aad siisid. quraac laga helaayo protein fiican, quraac laga helaayo healthy fiican ama dufanka fiican healthy fatka la yiraahdo, quraac laga helaayo mataqaana antioxidants waxyaalaha jirka ka difaaca cadowga, quraac laga helaayo vitamins, quraac laga helaayo macdanta jirka ay u baahan tahay minerals. waxyaalahaas oo dhan quraac laga helaayo ayaa u baahan tahay inaad jirkaaga siisid. marka waqtigaad siinaysidna waxaa waaye 45 daqiiqo ee ugu horeysa ee soo kacdid. saacad inaysan kula gaarin baa loo baahan yahay. waxaan kasoo sheekeynay casharkii hore in ay jiraan wax la yiraahdo starvation mode. jirkaaga haddii 2 saac 3 saac marka uu soo kaco cunto la-aan aad degtid wuu isxirxirayaa, wuxuu gelayaa xaalad degdeg ah, wuxuu u maleynayaa inaad cunto usoo wadin. cuntada markaas aad siisidna waxa wuu haynayaa, wuu keedinayaa sababtoo wuxuu u maleeyaa inaadan cunto kale usoo wadin. marka 45 daqiiqo ee ugu horeysa ee aad soo kacdid waxaa u baahan tahay inaad wax cuntid. sidoo kale calooshaada iyo dheefshiidkaaga diyaar waaye. waxaa lagu tilmaamaa dadka subax alaasada inta marka soo kacaan quraacda in ay wax badan ka caafimaad badan yihiin dadka quraacda u suga. marka waxaa kaloo faa'iido kaloo laga helo waxaa waaye calooshaada way soconaysaa, way shaqeynaysaa, markiiba musqusha aadaysaa oo saxaroonaysaa. dadka badanaa aan arkay ama aan wareystay ama aan la kulmay waxay u badan yihiin dadka macnaha waxa weye caloosha ka sheegtaan sheegaya badanaa aan arkay waxay u badan yihiin dad aanan subaxii aanan quraacan, dad subaxii aanan quraac fiican ahayn wax badan u suga markay soo kacaan. dadkaas waa dadka u badan in caloosha laga hayo ama caloosha ku istaagayso ama musqushii ma aadi kartid ama waxa weeye cuntadii aad cuntay baa ku fadhiisanaysa. marka si aad uga badbaadid waxaa muhiim ah subaxii alaasadii quraacdaada in aadan u goynin. caadi ahaan waxaa lagu tilmaamaa the most important meal breakfast. cuntada ugu fiican aad cuntid maalintii waxaa lagu tilmaamaa breakfastiga inuu yahay. habeenkii oo dhan baa hurday, jirkaaga calories badan buu gubay, lafahaagii wax badan bay hurdeen, marka shidaal bay u baahan yihiin. marka insha allah waqtigaas waa waqti ugu fiican ee loo baahan yahay cuntid. wax badan baan waa ku celceliyay laakiin muhiim weyn waaye qodobkaas. qodobka labaad waxa waaye
haddii aad tahay caadi ahaan dadka cuntada badan cuna haddii aad tahay ama dadka jecel in cuntooyin kala duwan cuna haddii aad tahay waxaa loo baahan yahay inaad xoogga saartid maalinta gelinkeeda hore inaad waxa cuni kartid aada cuntid sababtan saa u leeyahay waxaa waaye jirkaaga ilaahay uu ku siiyey iyo maskaxdaada way kala yaqaaniin subaxa waqtiga gelinka horena way yaqaanaan gelinka dambena way yaqaanaan marka gelinka hore waa waqtiga jirkaaga uu shaqeynayo wax walba uu gubayo aada siisid gelinka dambe waxa waa jirkaaga wuxuu usii socdaa habeenkii sababta habeenkii baa soo dhow marka cuntada aad siisid waxa uu sii haynayaa marka saa daraadeed first half of the day maalinta gelinkeeda hore wax walba cuni kartid haddaad hero cunto tahay inaad cuntid baa fiican ma garanaysaa ku dadaal maalinta qeybtooda hore inaad cuntid haddii aad cunto badan aad u baahan tahay ama dadka cuntada badan jecel haddii aad tahay laakiin mar walba la soco small portions mar walba waxa waaye adoo aayar u cunaaya inaad cuntid baa loo baahan yahay portion yar oo ma garanaysaa mataqaana isku dhadhow inaad cuntid hal mar inaad dalaq siisid ama mataqaana dig ah ka siisid looma baahna marka taasna waa qodob kale aan jeclahay inaan idinla wadaago maalinta gelinkeeda hore isku day wax walba intaa cuntada cuni karti inaad cuntid waayahay maalinta gelinkeeda dambe haddii la gaaro waa qodobka saddexaad waaye second half of the day haddii la gaaro waxaan kaa rabaa in aad cuntada aada cunaysid aada slow ku samaysid aada aayar aada u cuntid ama aada iska dhaaftid ama aada iska daysid ama ma garanaysa aada iska yaraysid baa loo baahan yahay sababta waxaa waa saan soo sheegnay jirkaaga wuxuu aaminsan yahay maalinta gelinkeeda hore in loogu talagalay in uu shaqeeyo saa daraadeed waxaa jira xadiidka nabiga sal allahu alayh wasalam uu leeyahay buurika liummatii fii bukuuriha ummaddeeda waxaa loo barakeeyey oo ilaah subxaanahu watacala uu barakeeyey subaxii wax badan baa laga faa'iidaa jirkaaga iyo maskaxdaada iyo dhinac walba qofka waa ogsoon yihiin jirkaaga subaxii alaaseydii shidaal badan ba u baahan yihiin sababtoo shaqa u socdaan waxbay qabsanayaan dadku waxa waaye way ka lahaan marka laakiin gelinka dambe waxaa loo baahaya cuntada cuni lahayd inaad aayartid ama aad iska dhaaftid qodobkaas waa qodob muhiim waaye qodobka afraad baan u gelaynaa qodobka afraad waxa waaye marka aad habeenkii markii la gaaro marka aad seexanaysid waxaa habboon 3 saac ka hor in cuntadii ama cashadii ay kugu dambeyso marka 3 saac ka hor inta aadan seexan waxaa cuni lahayd inaad cuntid saa daraadeed aadan tagin sariirta adigoo calooshaadu ay buuxdo sababtoo ah caloosha marka ay buuxdo oo aad sariirta tagtid cuntadaas meel galayso male cuntadaasoo kuu fadhiisanaysaa aday kaa jaran tahay jirkaaga wuxuu rabaa cuntadii in uu gubo fursad uu ku gubana ma aadan siinin marka at least waa in aad mataqaanaa kugu dambay 3 saac waa inaad joojisid cuntada aad cunaysid 3 saac ka hor inta aadan seexan faa'iido weyn ayaad ka helaysaa waxaa waaye waxaad tegaysaa sariirta adigoo fudud baad tegaysaa hurdada markiiba way kaa soo dhacaysaa dad badan baan wareystay dadkaas waxay ii sheegeen habeenkii markay casheeyaan oo sariirta ay tagaan hurdada way ku adag tahay inay ka timaado sababta waxa waaye maanta oo dhan bay galgalanayaan maanta oo dhan bay ordayaan maanta oo dhan bay rabaan in macnaha waxa waaye ay hurdada ay ka imaato sababta waxaa ku jira cuntadii ay cuneen meel jirka uu u saarana ma lahan marka saa daraadeed waxaa muhiim ah 3 saac ka hor inta aadan seexan in cashadii ay kugu dambeyso ayaa muhiim ah tan labaad waxa waaye ku jirto faa'iido labaad ku jirto waxa waaye hurdo fiican baad helaysaa hurdo fiican markay heshay subaxii si fiican baad usoo kacaysaa haddii kale waxaa dhacaysa in hurdo fiican aadan helin subaxii aadan soo kicin jadwalkii oo dhan uu kaa halaabo hadhowtii aad noqotid qof caajislow ah daal badan leh oo hadhow waxba aanan qabsan karin baad noqonaysaa marka faa'iidadaasna faa'iido kale oo ku jira waaye faa'iido saddexaad oo laga helo waxaa waaye qofka subaxii habeenkii haddii cashada waqti hore uu casheeyo subaxii quraac fiican ayuu cuni karaa sababta calooshiisi way maran tahay laakiin habeenkii haddii aad calooshaada buuxisid
subaxii waxaa laga yaabaa inaad quraacdii aad ka carartid sababtoo ah ama aad iska dhaaftid sababtoo waxaa waa cuntadii cashada aad ku cashaysay qaar ka mid a ayaa weli jirkaaga kusii jira. marka waxaan jeclahay su-aasha ah waqtigee aan wax cunaa ee ugu fiican iyo waqtigee aanan wax cunin ee ugu fiican in aan ka jawaabay intii insha allah wax yar waan sii wadi doonaa barnaamijkan. waa barnaamij wax isleeyahay qofka haddii uu xaqiiqdii si fiican uu u dhagaysto noloshiisa wax badan ka bedeli karto. nolosheeda aniga wax badan ayay ka bedashay, dad badan noloshoodii markii aan la taliyay wax badan ayay ka mawduucan ama barnaamijkan uu ka bedelay. insha allah walaalayaal casharkan waxaad la wadaagtaan dadka kale daawanaya ama saaxiibada la tihiin la wadaaga. intaan iska arkayno casharkan cashar ku xig waxaan kaga tegayaa sidaas islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.